إلهي هاو نحريستو نحريستي سنة هاسيو نكي كورنيل حسن جامعيها أما كان حسن جامعة أتقانين ورامي أماليان واد انتين ليه ورغفك بلي آدن كإلهي نحريس وقبها هي صغر نولو حتى نحريس إلهي وقبها هي نكو نولي الحمد لله رب العالمين ما أنت وحا إيه صورتك شي صاحبك يا حسن جامعي oo igu dambeysay maalintuu dhaawacmo maalmo ka horreysay inaan telefoon kula hadla asagoo turkiga jooga waa raadis dheeraan u galay waxaan islahaa sida u dhaawacmay markii la iga sheekeeyey waxaan islahaa wuu fariisan doonaa howlgab noqon doonaa waxba ma geli doonaa islahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celinayaa janan weeye ninkaan daratada jananka xasanaa siiyey waa jenaraal xasan jaamici ninkaan ka hadlayay oo lagu qarxiyay siinka dheer loona soo qaaday turkiga tolkiisana ay u soo qaadeen jufadu ka dhasho waliba Saleebana u soo qaatay qof kale kulama amaal sheeganay waxay suurta gashay maanta inaan telefoon kula hadlay ummadda Soomaaliyeed warka farxad la gaarsiin qarax sud ugu dhacay xasan jaamici markii la iga sheekeeyay Muqdisho waxaan islahaa howlgab noqon doonaa waxba ma geli doono oo curyaami doonaa ibro noqon doonaa islahaa xasan maanta la hadl xasan wax uu qabo oo ilaahay abuurto ma jiro lugihiisa lagu socodsiiyaa intaas wajiga ah iyo intaas qaarkaas hore ah wuu u fiyowdahay intaas lugahan lug ka mid ah dhowr meelood ka jabtuu yiri waana kamatay oo kabniinka ku socda meeshaan maskaxda iyo wuxuu dhan waa u fiyowdahay ilaa wax ka gaareen ishii kalena waa u fiican tahay ishii kalena hadda waxbay soo aragtaa uu yiri si fiican wax u aragtaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ka warnaan ku yiri rajo ma leedahay inaan lugaha ku socoto war waxaan qabo ma lahu yiri hadda socdaaba hayga walwalnu yiri aniga sida u dhaawac markii la iga sheekeeyay markii hore waxaan isla xasan jaamici howlgab noqon doonaa ibro noqon doonaa waxa weeye xasan jaamici isagoo fiican ayaan turkiga kala hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og gacantii dhagartay wuxuu ii sheegay waliba in shalay madaxdii qaranka ay soo booqatay oo madaxweynihii Soomaaliya istaalku ugu yimid oo ii sheegay waliba oo si weyn loo xurmeeyay si weyn madaxtooyadii maaragtay ii sheegay istaalkii loogu tagay xasan sheekh maxamed ugu tagay oo maaragtay iskiisa ugu oo asaga daraadiis ugu tagay istaalku ii sheegay xurmad weyn uu sameeyay waa saxda xasan jaamici waa soo shaqeeyay waa soo dhintay qawaariijii asagu faraha isla galeen waa isku baaba'een ilaa iyo shabeellada hoose ninkii ku xoreeyo ahaa marqaati ilaahay leedahay intaasoo wiila uga dhimatay intaasoo goro ku dhaawacmay galgaduudna haddeertaan wuxuu kasoo sameeyey waa la ogaa xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa horta waa ogyaa gacantii dishay laakiin aniga xil guntada ah waxaan taaganahay mishin in lagu dila xasan sheekh maxamuud ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamed aan dhihina xasan jaamici ninka la yiraahdo mission in lagu dilay maalintu yimid maalintii ku xigtay hada qaraxan ku dhacay xasan jaamici soo siinka dheer maraayo afkooy u soo socday maalintu yimid maalintii ku xigtay qawaariij ma abaabuli karta dilka xasan jaamici never ma abaabuli karto alaab loo qorsheeyay oo socodkiisa la ogaa oo meel u sii taalay ayaa ku dhacday xasan jaamici caqliga bini aadamka loojiga la isticmaalo ilaahay ku siiyay haddaan maskaxda isticmaali weydana qof aan waxba kala socono meel walba lagu dili karaata aniga xil guntada maanta markaan taga magaalada Muqdisho 20 bari ka bacdi waa loo qaateen dadkuna waa tuhmi karaan qawaariij haddaan dhinto oo nafta i dhaafto qawaariijina i dishay laakiin maalintan taga maalinta ku xigta mission impossible la yiraahdaa waxyaalo dhici kara oo dad ay ka dambeeyaan qawaariijta nin kasta adeegsada maanta ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baro siyaasi kastoo ciil qaba qawaariijku ku ciil baxa sidoo ugu ciil baxan waa idin sheegaya 100 kun siiya baawar qaraxa iisoo raru yiraahdaa siyaasi kastoo ciil qaba runta idin sheegaya maanta wala madaxweyne ka hadlaayo oo dhahay madaxweyne oo wadanka nin madaxweynaha soo maray oo dhahaya xasan sheekh ama sheekh shariif ama farmaajo nin dhahaya maaragtay raggi isaga dambeeyay xasan qawaariijtii u dhaxgala oo waa la shaqeeyaa isma dhihi karaan de way og yihiin de way ku dhex jiraan de waa ku shaqeeyaan waxay rabaan ku qurbadaan runtaan sheegaya maanta anigu siyaasiyiinta xildhibaanada nooc walba ku shaqeysata wallahi billahi tallahi waxa la leeyahay xil guntade aan rabaa inaan ku taga 100 kan kunaga qaata arintaana fuliya la yiraahdaa nin siyaasi ku shaqeey qawaariistan ma jiro dhaxgelitaankii aan dhaxgalada siyaasadda iyo
maaragtay wararka raadintoodaana ku ogaada aniga marka hore maana ogeyn qawaariij wax la yidhaha iga dhaadhici jirtay xasan marka waxaa dishay qawaariij la adeegsaday oo lacagta la siiyey oo la yidhina dhaafsha ayaa dishay ninkii u adeegsadana anigu aan tuhunsanahay ama boqolkiiba boqol aan leeyahay wuu dilana waan aqaanaa anigu berri ka maalina waa kula xisaabtami doonaa haddaan noolahay naftii ugu jirto xilkaana lama hayn doono weligeed waana laga degi doonaa ninka ciidanka taliyaha ciidanka ahaa oo markaas dilay xasan shaamici oo alaabta ninkii rabaha soo adeegsada isagu laakiin ninkii maaragtay mishinkaan dhigay anigu waan aqaanaa waana kula xisaabtami doonaa haddii ilaahay nafti igu dayso waxaad ogaataa hal mara nafta inay kaa baxayso hal sifana aad u dhimanayso walwal iyo dhibaato iyo waxaasoo dhan xagga iska dhig hal sifay kaaga baxaysaa hal marana dhimanaysaa inta ka horreysa dadkana ha u gafin wixii xaqa oo run ah oo ilaahay kugu og yahay oo xaqiiqana soo gudbi